السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه سود وينيا ضمان مرتشلة كسوق قريب كشهر كان مرتدا مدحدا قرنكا ونوعية بدن قناعسي له حكومة له رقم له يدد كلوا قوية هنبا هذه الدنيا سود وينيا وانا كفر حسنا كسوق قريب كشركة وحكلوا هذه سود وينيا سفير وكيلة دولتها تركيا إثيوبيا جيبوتي ونؤاد ما هذا قلنا إن كسر بيت قلنا شركة لقد وديو اسكو حركة بانك يدتك إياها أداها مالية دولك هذه الدوماتي وحي فرحان ما أنت هنا شركة سر رسمي وفروه أو فيلايو رجينا ونقونا أيوه وضع الصب ونوباهرين ونكون درجلين إنه كبعينتا ولا شقينتا إسفهمك إياها هناك أي نقاله إن يسوح إلى هيدا كشقية أو موضوع إلى مركورن كرداتيه در كوريين إنه هي أذهنا مدمر بين أبورنتي قارب شرعي كهرية مركا ودقف كورية عادي ما أنت مال بين مرينا إلهي مهدية أي وزارة المالية هي بانكي قارين هير أي كلميان ضمان هذه بعض المالية ترى أي كوضة التشلاء سيدلك أوهر مرة هاي يجوا إسكاب شنايا إسلام حياة لباتوي كتيرة إسلام فهم هاي إسلام لباتوي كانوا بيو سوى التيرة أنت أي سوى شيء تذكر أقوام تورها شغلنا مالية هذين هيدا قاركا هذه بانك الرحلة هي وزارة المالية فكرتها قوبا أي نوسو شديد وأوح علمية وأن ملاوارا هنا لقد ودين أيام كرة سنة هاي وحنا إلى هاي كرتينيا إن أي إنه هجريا أنت سوى شركة مانتا قادو كمين كو حوي حكومة هان محانو كقبنا ولا شقين تا بهذا مالية boqolkiiba boqol sidaa ay lagu hogaaminayaan wasaaradda maaliyadda ee baanku waxaanu aaminsanaanu raacaynaa inuu dalku hore u marayo keliya marka ay hirgalaan hay-ado maaliyadeed oo madax bannaan oo xooggan iyo wasaaraddii iyo baankii dhexe oo shuruucdii iyo kormeerkii oo keliya leh ee aan dhex gelin suuqa xorta ah oo aan gacanta gelin waxaanu aad iyo aada u xiisaynayna aanu jecelahay inaanu isfaham buuxa iyo wada shaqayn dhow yeelino hay-adaha maaliyadda ee madaxa bannaan sida shirkadaha rugta ganacsiga kuwa caymiska kuwa sarrifayaasha ah oo kuwa ugu muhiimsan ah tira ahaan iyo adeeg ahaanba iyo dhammaanba ciddii hal abuur leh xukuumad ahaan waxaanu codsanaynaa baananka madaxa bannaan oo ka xoog badanba ama ka hor dhasho ka hor qaadin baaranka ka baanka dhexe oo kale waxaa saaran xil weyn oo ka duwan ka ganacsiga waa leeyihiin oo waxaa saaran xil qaran markaynu doonayno dalku inuu horumaro mas-uuliyadda koowaad ay furaysaa waa iyaga dhaqaalihii xooganahaya markaynu doonayno inaynu shaqo abuur samayno shaqo abuur sayno dhalinyarada ka saarana mas-uuliyad dheeraada idin furaysa markay mas-uuliyaddaasi idin saaran tahay waxaa ummaduna idinka sugaysaa annaguna idinka codsanaynaa inaad xil weyn iska saartaan laba qodob marka hore wada shaqaynta dowladda iyo hay-aduhu inay muhiim tahay xukuumad ahaana waxaanu diyaaru nahay sida ugu dabacsan ugu macquulsan ee idinku shaqayn karaysaan idinkula shaqeeyo oo aanay marnaba dowladdeeda kaga imaan xanibaado iyo wax aad challenges xagga dowladda kaga yimaado waayo dowladda waxaa qoonsta inay dhaqaale idinku hogaaminaysaa ka labaad la iska codsanaya waxa weeye inaad qayb xooggan ka qaadataan sidii dalka shaqo abuur loogu samayn lahaa daayarta dadkeena boqolkiiba 70 baa daayara waa inuu daayartina waxay u baahan tahay nolol haddaynaan taa xoogga badan saarinna waxaa laga yaabaa dee inaynu crisis galno waayo idinka laftiina cid waxay ka iibsatay iyo cid account ka furata mid heli maysaan haddii dadkii boqolkiiba 70 aanay shaqo haynin ka saddexaad waxa weeye inaanu degdeg isaga dhammayno oo si wada jira idinka iyo hay-adaha
dowladda ee maaliyadda sida baanka dhexe iyo wasaaraddu aynu dhammayno shuruucda inaga dhiban weyn qodobka saddexaad aan kala dardaarmaya waxaa weeye in shirkadaha madaxa bannaan hadday baan tahay hadday isgaarsiin tahay hadday ganacsi tahay inay gaadhaan bisayl ah inay shirkada ka koraan oo noqdaan shirkado waaweyn oo wax wadaaga inta aa wadaagtaan baa ka badan intaa ku tartamaysaan marka maanta waxaa joogtaan halka aan noqon lahayn corporates oo idinkoo Soomaaliya isu tegay caalamkana ku faafi lahaydeen idinkoo sidaa tiin ka xoog badan midka laakiin haddii tartanka dhexdeena lagu habsaamo waanu isla hagaasayna taana wax ku dardaaraya in la yareeyo tartanka dhexdeena isagoo marketkuba tartan yahay suuquba oo dhaba haddana in loo gudbo wax wada lahaansha dhaliilaha loogu weyn dalkeena waxaa ka mid ah telefoonada ma wada hadlaan ilaa maanta 20 sano dowladda loo timaado iyo xukuumadda waanu idin barinaa walaalayaal isku xidha yaa naga aqbala ee la idin xooga ka reeb oo dadka isku xidha dowlad barayaysa waa sharaf karamaan u aragna ceeb uma aragno inaanu idin barino walaalayaal dadkeena isku xidha oo dhib yareey uma aragna ceeb iyo dowlad baqanaysa waa isaasay hore ku maraynaa iyo tartamo kale oo badan baa inaynu yareynaa wanaagsan waxaan ku soo koobayaa habaliyo dhammaan bahda maaliyadda ee Somaliland hambaliyo wasaaradda banka soo abaabulay hambaliyo shirkadaha ka qayb galay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noqdo shir ay ka soo baxdo kobo iyo horumar dhaqaale iyo hanaan wada hadal ku si wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh